السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن walaalyaal meel waliba joogtaan nabad dushiina ha ahaatee waxaan ahay Cabbaas Cabdi Maxamed dunida maanta mashaakilkeedu waa u fara badan yahay mid idinkeedan kamid waxa laga yaabaa qaar kamid qoyskiisa inay xabsi ku jiraan inay qaar xanuunsanayaan qaar in nolosha lagu laayahay ama qaarkiinba aad deemaysan tihiin halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa kelmado yar oo fudud oo Nabi Maxamed nabadii naxariis dushiisa aatee uu baray mid kamid ah saxaabadii Nabi Maxamed oo xilligaas dhibana saxaabi lagu magacaabo Auf ibn Malik al-Arja'i ayaa u yimid Nabi Maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa aatee asiga oo murugsan waxa uu ku yiri rasuulka Ilaahayow wiilkaygii waxa uu ku raacay adiga oo uu kula jihaad tagay isla markaasna ma uusan soo laaban arintaas aad ayaan uga murugsanahay wiilkayga meesha uu ku dambeeyay Nabi Maxamed nabadii naxariis dushiisa aatee waxa uu fahmay in uusan dhiman wiilka maqan laakiin uu galay gacanta cadowga isla markiiba waxa uu faray oo uu ku yiri saxaabigii Auf oo ku laaba gurigaaga oo dheh la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim iimayna sugnaanin xaalad iima sugnaanin awoodna iima sugnaanin illa ilaahi mooyaan sida dheh buu ku yiri Nabi Maxamed nabadii naxariis dushiisa aatee saxaabigan oo oona aaminsan hadalka Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam inuusan ahayn mid fudud ayaa ku qancay intii loo sheegay sidii ayuu akhriyay kuna laabtay gurigiisa xaaskiisa ayuu u tagay una sheegay oo ku yiri xaaskaygii Nabi Maxamed nabadii naxariis dushiisa aatee arintaas ayaan kala soo kulmay oo sidaas ayuu ugu yiri xaaskii oo ahayd mid wanaagsan oo ayadana ku qancay hadalkii Nabi Maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa aatee ayaa tiri Ilaahay aan ku dhaartay hadalkii Nabi Maxamed ma ahan mid fudud waa mid aan aamini karno kuna kalsoonaan karno meeshii ayay fariisteen waxayna wadeen oo ku celceliyeen inay akhriyaan la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim illa xilligii dambe ee habeenka kolka uu waagi baryayo uu albaabka u soo garaacay wiilkoodii oo nool oo socda isla markaasna wata xayn xoolo ah ama koox ariya wata markaas ayuu yiri saxaabigii wiilka dhalay aabe halkee ayaad ka baxday waa aan ku weynay wiilkii ayaa uga qiisooday aabiis iyo hooyadiis oo ku yiri aabo waxa aan ahayd mid la dagaalama gaalada ilaa markii dambe cadawga ay gacanta igu dhigeen isla markaasna ay xarig weyn oo xoog badan igu xirxireen waliba si adag oo daran ayay ii xirxireen halkii ayaan habeenkii baryayay isla markaasna waa ay hurdo tageen waxaan dareemayay marka ka dambaysa xarigii ugu xirnaa oo sii dabcayay ilaa uu noqdo mid aan iska furi karo oo gacmayga aan kala bixi karo sidaas daraadeed kolkii aan xarigii iska furayna waxaan arkay xayntan ariga ah ee cadowga meel ku xareysteen isla markaasna waan soo didsaday bal ka waran la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim waxa ay xarkaha ka furfurtay wiilkan ay xirteen gaaladu oo ay ku xireen waliba xariga xoog badan miisan kula ahayn adiga oo aaminsan oo ajidsan hadii aad akhriso la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim inay soo deyn karto kuwiina xiran inay kurbada ka qaadi karto kuwiina kurboon in ay xabsiga ka sii deyn karto malaayiin laga yaabo meel kasta in loo maray inay deymaha ka gudi karto kuwa deymaysan inay culayska ka qaadi karto kuwa culayska u hayo saxaabiga ayaa arintaasi aad iyo aad uga helay lana yaabay una soo laabtay Nabi Maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa aatee una sheegay faa'iidadii wixii uu akhriyay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam ayaa u akhriyay saxaabiga aayadan quraanka oo ah ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلهي قفكي كبقى إلهي قفكي ستوس أو بقى إلهي فرج أيو أفريا كربا والبا أو كهيستا لباتا والبا أو كهيستا حدي أتربي أولابته وأتربي أشاقته وأتربي قعما أتاقته ولا حول ولا قوة إلا بالله أذيو آمن سنو أي سنة تكون العلسو ربي تبارك وتعالى وكافة إذيا walaalkayga kurbaysanow walaalkayga dhibanow walaalkayga culayska adduunyo u haysto aakhiri adduunba waa liibaanaysa ee kelmadahan rukumo sheer gare oo walaalka gaarsii waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan